baadiyaha Hargeysa gaari baranaya arkay ilaahay leys ka fududeeyo ducu baayan ka soco iska dhacda adoo 50 years old jiro inaa ceer qaadatid dada xitaa caruurtooda السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا كسر هذا معلم channel أصحاب بدن أيارنتي يو معناها نوصل بيتي سعده أقدم بيرنتي كوني كوجر وما سنتين. Thank you a lot. سيرش واحد عن تقسمك. أفعلنا وحولها شكرا. الصوماليين وما سنتين. كسؤالين وحالها سنتي سنة أف لغة كلا واجن بس كسعودي ملا لكن وما سنتين إنه واقف أنت أصحابتا أصحابتا عاوة حنا أد أو حماضة حصارتين لو ذا كليب اللبنان واللجنة ورنتي سايسكو دجن هبيني مالن وواحد لقى في يعني رجع ويسقطها سومالي حدا عربي الك أسقام عربي الك أسقام كل اللي وحاول عربي الك معناها سكمل كيالان which means لبض قفاد سكولو سدا عربي السقامان أي سكول عكران أي واحد أحمر عكران مركو حعيبة أو واحد لقى ماذا وحالكو سوبديستي إن كو aan runtii aad ugu xumaaday in labada nin muddo arintooda soo socotay weli sii socotan kaasi u fiirisid dad badan oo TikTok ku jirana ay runtii sii hurinayaan intay busy u qaateen ay sii shidayaan dhag bul markaasi u fiirisid laakiin wax oo habboon ma ahan runtii waa rag dhalinyaro ah in maanta oo magac bulshada ku leh in isjitaan oo runtii oo arrimahooda marba si keysaan dhahay shiini culeysaan dhahay laho horta sharaf ma ahan markaas u fiirisid aykan sharaf ma ahan dadka daawanaan sharaf ma ahan dadka biri daawan doona sharaf wax waa wax YouTube ku jiro internet ku jiro waxa laga yaabaa biri in oo caruurtiina fiirsadaan waxaan rabaa tusaale in aan siiyo CK إدريس العبدي والله بلجن أو يوتيوب ما يحكوا له سوامر ديال له وعندي كلا لبضة ده بحكي ليهن ميسي رونالدو حق فوتبول بنقول فيريو حق يوتيوب كا وإدريس العبدي يو سي كي لبضة كي ميسي كي رونالدو نيجي كلا شيء جاي لكن anyway واحد بدن السجتين أو قدام بين أنت كشقيسي أما هدي عيك بأي قرتين قرطوي هادوي هشين runtii marsaa fogeen bay hesheen haddana maasha allah waa laba nin asxaab ah isku meel hadda joogaan hargeysa joogaan saan filaayo walow idris uu ka horeeyay CK hadduu ka daba tagay waxaan arkay video aad u qurux badan idris la oo runtii CK si kalaab ugu soo dhaweynayo xalfad yaroo surprise ah u sameeyay maasha allah horta ragga way heshiyaan maalin ويشين دونان CK iyo إدريس العبد CK iyo I mean شين علي ما أنا ويشين دونان لكن دتك كل أحد معايا هيا وحن ليه هاي ورميه وكفير صدا أنتن رجع ورجع هشيو ويشين دونان والله ونين ويوتيوبر عنا يوروب كودانول مالين ما كمل رنتي ويكون من دونا هدي النولي هالتأكد دونا هذا أيك نوليين وين نعدنا إن شاء الله فيديو هدو قارنو حفلا إني سي oo runtii waajib la'aan u qaataan hadalka soo gaari doona waayo nabadoonka YouTube ayaa la hadlay marka CK oo waxaan arkay runtii baashaalayo jawi kala ku jiro hargeysa baashaalayo oo runtii duriyada la joogo maasha Allah gobolkii ragga macnaha inuu wala tagay weli ma aqaano برعو لكن وقولة سومالنا بعد وقت عاد قرب بدون قارنة سي أصحاب كلو خالية يدرسون وكذا وتجي مركا شين علي وحارك هنتي تيك توك لقوي دي سؤال أو هذه أنا جيم عياراي أيا قف مركا لقب بدي سؤال أغنى سؤال ويديا مركا أذي وحال لهاي سيكي أمان ماشي أمان لقى سوق أذي وح كلو ماشي دريري marka
wax fiicana ma ahan in runtii qofka ammaan dii u dhaho waxaa waajib ku ah in runtii qasab maaha inaa qofka ammaanta inaa cayso laakiin waa ka aamusi kartaa ama wax kala sheegi kartaa qofka laakiin in oo target point noocaas camal la taabto wax sharaf ma ahan CK naftiisa isagoo dollar saan u farjinaa arkay maasha allah allah u barakeeyo oo dhahay waxna waa micnaha fariin commenti markaa akhriyay waxaa soo baxday inuu duraayo saaxiibkiisa Shiine Cole laakiin CK wuxuu ku amaanayaa in afkiis laga maqlin Shiine Cole ta ayada waa point as u gooni ah halka Shiine Cole magaca CK afkiisa uu qabtay uu sheegay wuxuu qabanaa Hargeysa sababtoo aaday wax kale ugu daray marka anyway waa ragis hayo dad commenti markaa akhrishi CK waxay dhahaan Shiine Cole ku wada Allahu a'lam ana kama ogine laakiin waxa ognayn is hayaan labadaas nin insha Allah arintoona ay soo gabagabay doonto marka koowaad waxaan rajayn lahaa inaan daawano video yar oo kooban oo Shiine Cole ku hormarayna oo la weydiiyay iyo wuxuu ku jawaabay CK oo sharaf leh igu amaan ninka amaan waa baahnaa duco u baahan yahay isagoo baadiyaha Hargeysa gaari baranaya arkay ilaahay leys ka fududeeyo macna waa aragnay TikTok waa aafa kale oo la soo diray markaas u fiirisay hadda Captain Bara waxaan arkay runtiis naftiisa oo dhahay YouTube kan waardeeya beens maaha Captain Bara YouTube inuu waardeeyo wax keenay waxay tahay YouTube ka laga guuray TikTok loo guuray dad badan oo YouTube ka caan ka ahaa ee dhawaanaha waay Babaji kooka naftiisa YouTube laga waay Babaji dhawaanaha iyo TikTok u guuray odayga marka Shiine Cole naftiisa TikTok su'aal la weydiinay Ayub Carlo TikTok runtii dhawaanaha qasay markaas u fiirisay CK naftiisa TikTok qasay marka waxaa moodaa in Captain Bara markuu dhahayo YouTube kiina waardeena dhaxana ay u dishay hadda iman waysiin waajibsana inta ana ku daraa dhahada kaftan waajibsana ma dhigin marka alay taxal waxa keenay waxay tahay YouTube laga guuray TikTok loo guuray markay guureen oo ogtiin anna ma soo daamar YouTube soo guuray marka waa la daamar markaas u fiiris asxaabta laakiin muhiimada ugu weyn waxay tahay in labada nin ay heshiiyaan ayaa horta runtii oo muhiim ah saayni sheegan dhic doontaa insha Allah mar waxaan ka rajayn lahaa in aan fiirsano CK naftiisa wuxuu ku jawaabay macnaha hadalkiisa uu soo duubay oo dadka ay u turjunteen inuu Shiine Cole ku wada Allahu a'lam inuu ku wada waa afkiisa annaga ma ka maqleen kiin CK dawladda jir dhulkiisa ku raaxaysanaya brother maxaad leedahay miday hay libaaxi oo Hargeysa jooga hay libaaxyada geeskan la jooga marma wadinay alaabtana sheekeen sameeya money is nothing brother code صح waxaan anoo qoslayaan sameeyaa meesha ka imaadan ceerka horta iska dhacda adoo 50 years old ana CK waxaan kaga daysaa hal mid YouTube maanta sameysana taariikh dib loo laab taariikhda YouTube ki aan sameeyay maalinta YouTube sameynay waxay ahayd 2020 biseeda taariikh 6 wax xasuustaa maalin ka hor dadka Yurub jooga garanaa oo runtii Yurub ku nool CK gurigiisa Austria ayaa wax ka halaaway sa u fahmay clip uu soo duwa arkay odayga nin guriga hagaajinaya cadaan aha oo maaday wuxuu arkay CK oo macnaha studio-giisa maasha Allah qurux badan inta alaab ku taalo waa garanaysan qof YouTuber ah oo haddana YouTuber caan oo million haysto gurigiisa wax walba yaala camera hadda noqon wuxuu action ku bixinaya computer odayga wuxuu arkay ninka oo cadaanka ah uu weydiiyay marka wuxuu dhahay CK maxaa qabataa CK wuxuu ka jawaabay YouTuber ahay uu sheegay adii shaqadiisu sheegay videoga soo wada daawateen kulli laakiin waxa muhiimada aan ka wada waxay tahay maalintan YouTube furtay CK markaan ninka cadaanka uu weydiiyay ninka cadaanka wuxuu kale u raacay CK YouTube wuxuu ka helo CK waasha swaad u sheegay CK waxa ma qarin inta ka arkay marka maalinta ayda ahayd ninka cadaanka wuxuu ku sagtay CK sheegay in dharka shirkadda siibo uu YouTube furto inuu furtan kala ma aqaan Allahu a'lam CK tax soo jawaabay laakiin ani maalinta arkay maalin videogaas arkay galabteed YouTube waa furtay asxaabta ilaa haddana ku jira sababta oo furtana waa arkaysi in xad ninka dareerna ya nacla waqti marka insha Allah Allahu barakay asagana CK ni walba oo runtii hadalkiisa Allah siiyo muhiimadu waxay tahay horta CK saayni sheegay aniga iyo dadka daawadaba afkiisa runtii ma ka baqlin inuu Shiine Cole halka uu wado inuu wada laga inuu wadina Allahu a'lam CK siyaasi lama ku mogen rag siyaasiyiinta waxa lagu aqaan inta badan marka inta waa hadlaan marka inta waa hadlaan laakiin ma naqaano runtii Yurub ceer lagu qaataa
qof Yurub joogo runtii ceer qaadan uu yar yahay markaas hal laba waaye waxa lagu nool ceerta waaye dad badan oo Afrika joogo oo ceer Yurub ku caanay waa maqle furux ku dhigla kamid waxa kale oo kamid Ilyar fanaanka weyn laakiin ay kaftan bay ka wada ma dareemi karaa laakiin markaas uu fiirisid Yurub ceerta lagu caaya laakiin ceerta lagu nool yahay ceerta soo dhaca waa la kala gooyaa Afrika loo diraa marka waa lagu nool yahay walow hadda menes imaaday saan la socono corona wax baa imaaday marka COVID-19 menes uu geliyay ceerta nafteeda reer Afrika la socda intaas ma isa kaftan marka miimada aan wado anoo nabadoonka YouTube macnaha miimada aan wada waxay tahay in arrinta meesha lagu afjaro ceeb in laba nin oo legends ay isjiitaan mar walba wax fiican ma ahan rag way isqabtaan weyn heshiyaan runtii CK hadda waxaan aragnay in runtii asiga Idris runtii dhaxdooda waxan baa la dhaxshay jiray Idris saan dhahay CK saan dhahay gadaal dawada jiray maanta labana saaxiib gacmo isqabsaday ma sha Allah dad Soomaalidu ku farxayaan hadda video ay soo duwan Idris iyo CK waa aragteen daawashiis intuu gaaray inta like uu helay which means dadka way ku farxayaan waxa soo abjarantay dad badan oo markuu CK hadlo Idris la uu hadlo macnaha wax ka dhaxaadan jiray hadda way tii ayada dhamaatay hadda waxa loo guuray Shiina Coley iyo CK birna ma aqaanantay wax dhici doona marka dadka caanka ah runtii dhibkaas ay qabaan wax oo fiican ma aha in runtii la jiito oo hadala qulqul hadal isku mariyo asxaabta insha Allah hadalkii waxaan filayaa in runtii uu san qof in aadan dhaawici doonin muhiimada hadalka aan soo duu wax kala maan waxaan rabaa in runtii bulshada dhanka wanaagsan loo leeciyo dadka u leecin karana waa dadka mikrofoonka haysta dan qolna wariye hadana qolna YouTuber caan ah sida ana wili caan wali noqon YouTuber caan ah runtii ama siyaasi doon lahaa sheekh doon noqon lahaa dadka caanka ah oo magaca bulshada ku leh waxa laga rabaa in runtii ay bulshada dhanka wanaagsan u leexiyaan ay tusin wax xun wax wanaagsan ay runtii mar loo soo gudbiyo adoo wax fiican oo wanaagsan oo adi dhibkaaga imaanaynin qofka daawanaya uu ku dhibsan karin gudbin karo muhiim sameynaysa in wax xun oo biri adi sumcadaada dhaawacayo magacaaga dhib u keenayo laga yaabo ilmahaaga biri markay daadan naftada ay ka qoomayn karaan waa aran dad badan oo dhahayo I wish I knew some million amal wixii dhac ka qoomeyna 100 qof aragnay runtii marka waxa fiican qof markuu mikrofoon qabsado oo runtii wax inuu gudbiyo rabo inuu wax fiican gudbiyo dadka ay ka faa'iidayaan sida hadda CK uga faa'iideeyay YouTube-ka camal muhiimad wax ku jiro marka runtii macnaha wax fiican ka qaatay CK waa waxa badan muhiimad macnaha ma in CK wax xun kale uu sameeyo laakiin waxaan ka wadaa qofka dhageyso inta fiican ka qaado inta xun ka qaadan iska dhig marka waxaan dhihi lahaa asxaabta insha Allah aan ku baraarugno halkaan astaan waa macallin channel sida caadi ah asxaabta noo soo biirtay aad u maasantiin kun iyo jeer kuwa kale intaan soo dhaweynaa waan sugeynaa insha Allah rooga casaani fidana marka salaamintan asxaabta ku soo dhawaada macallin channel haddii tahay markuu rajana ka soo boqotid fadlan subscribe nasar